Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha qaaliga ah waa idin salaamay. Saxaabay maanta maxaa inoo wadaa aragti maasha Allah tabaaraka Allah maraq caadi ahaan aan rabnaa inaan samaysano laga sameynayo digir iyo spinach. Meesha waxaa ku haysanaa xabad basal, saddex xabo oo tomaat, saddex xabo oo baradho, sidoo kale toon iyo kabsar oo shiidan iyo digirta isticmaalayo waa noocan fulka dhalada ku jirta waaye oo diyaarsan. Sidoo kale meesha waxaa ku haysanaa spinach ama koosto. Intaan aan rabaa inaan isku kariyo maraq yar oo caadi ahaan aan nagu soo bixi doono insha Allah ka faa'iideysta. Intaan ay noo soo diyaarinaa haddaan soo jarjara insha Allah. Saxaabay waxaan soo jarjaray hadda yaanyadii iyo basashii. Sidoo kale koostadiina intaasaan ka soo jarjaray. Insha Allah waa aragtay si dhow waan soo jaray. Sidoo kale baradhadiina si roon adiga yariisna ma ahan waaweynna ma ahan. Digirtiina waan soo dhaqay dhalada biyaheeda dhan waan ka soo daadiyay laba jeer biyo nadiif ku soo dhaqay marka insha Allah hadan digsigeeda ku noo saari doonaa. Masha Allah tabaaraka Allah digsigan wuu noo kulaaday waxaan ku darsan saliidana isticmaala saliid olive oil waaye. Tan aan ku karsanayna insha Allah. Wax yar oo saliid aan hadda dabkii digsigan ku shubanay. saliida ku samaysan kartaa laakiin insha Allah olive oil idaan isticmaala ani waxaa rabtida ku darsan kartaa muhiim ma ahan. Sashii hadda baradhadii wax yar aan shiidayna wax yar intay sash ay ugu yar ay ka dhimato iyadoo sideed u nool ina tomato ka darama rabo marka wax yar aan sugayna insha Allah. Saxaabay maraqan caadi ma ahan walaa waa fitamiinad badan oo leeyahay koostada waa ognahay digirtana faa'iidadeena waa ogtihiin. Marka insha Allah ka faa'iideysta aydan leeyahay wax kasta aan ku cuni kartaa. Haddana waa aragtiin tomatkii aan ku darsanay. Yaanyadii markay basashi wax yar inoo kartadana. Yaanyadii aan ku soo daray oo soo jarjaranay. Intaana wax yar sugaynaa hadda markaas u dhaqaajisido ay yaanyada iyada waaweyned masha Allah dhacaan ay leedahay hadda uma baahan inaan dhacaan ku darsana insha Allah. Aan ka tagaynaa wax yar ilaa 4 daqiiqo ka maqnaan insha Allah. Masha Allah anoo biyo waxba ku darin waa aragtiin way iska kartay iyada biyo dhaxaan dhashay yaanyada. Masha Allah wax yar hadana waa aragtiin wali kuskuskii ma baabi'in. Wax yar waan dhaqaajinayna say u jajabto markaas iyada waaweyn zaidna ma soo yaryarin markaan soo jarjaray wax yar oo biyo aan ku darsanay say wax yar noogu karto tomaatka. Marka insha Allah walaalaha qaaliga ah maraqan hadda bartidaan ku dhahay wax kale ma u baahnid. Hilib lagu quracanayo iyo ma jirtaan ku dhahay masha Allah tabaaraka Allah. Hadan waxaan ku darsanay digirteeni. Digirtii fulka laba nooc badan ay leedahay laakiin ani tan aan isticmaala hadda. Kaas biyaha dhacankeeda dad qaar way ku darsadaan laakiin dhadhankeeda necbahay biyaha oo ku diyaarsan markaas iska daadiya. Sidoo kale hadda waxaan ku darsanay baradhadii. Digirtii baradhada hal mar aan isku la daray. Wax yar oo hadda waxaan ku darsanaynaa oo biyo. Inta xoogo ay noo kartaa rabnaa maahano tomaatka iyo tomaatka aan dhihinay digirta iyo baradhada marka intaas biyahan ku darsanay wax yar aan sugayna insha Allah. Ilaa wax yar ay nagu soo karta kadib isku soo noqon doona insha Allah. Hadda aragtiin wali yara dhiman insha Allah. Bacda 5 minutes aan soo noqonay masha Allah baradhada inay jajabtana ma rabo. Baradhada wali waxaan rabaa saldaad inaan ka waxayna kala ku darsana. Waxaan ku darsana wax yar oo maraq digaag. Cusbo waa ku darsan kartaa laakiin maraq digaag aan dhinaan zaid ma lahan. Dhadhan fiican wuu leeyahay taas darteeda oo isticmaala. Sidoo kale wax yar oo filfisheena madooweedaan ku darsanay. Insha Allah saxaabta qaaliga soo dhawaada aydan leeyahay masha Allah. Waa aragtay maraqan dhigiisa hadda soo bedeleen. Insha Allah tabaaraka Allah wax yar hadda waxaan ku darsanayna kabsar caleenti iyo toontii oo diyaarsaneed. Intaan hadda ku darsanayna insha Allah. Intaan markaan ku darsano hadda waxa inoo dhiman waa koostada inaan ku darsano. Koostada karis in la kariyo ma u baahna. Saa ogtihiin wax walbo oo quruunay waxa waaye
inay zaaid u karto ma ahan, haddii kale nafaqadii dhan aa ka dhimane. Hadda digirteen weli ma jajabin waa aragtiin. Sidoo kale baradhadii way kartay laakiin zaaid u jajabtayna ma ahan. Marka hadda spinachkii aan kor kaga darsanay. Spinachki wax badan uma baahna 2 daqiiqo wax ayaa ku filan maahano. Spinachki karsan badan ma rabta marka saas darteeda inaa iyada ugu dambeysiin waa aragtiin. Masha Allah tabarakallah ma laga sheekeyn karo maraqan caadi ma ahan. Digir iyo spinach oo isla helay faa'iidadeeda ma laga sheekeyn karaba. Rooti aa ku cuni kartaa, canjeerada ku cuni kartaa, wax walba. Wax diiday ma lahan. Masha Allah tabarakallah caloosha kuu socodsiinaa. Dhadhan yar oo waxaan ku dhahay digir iyo koosto hadaad isla heshid. Masha Allah baradhada waxaan ugu daray inay wax yar noo adkeysaan rabay. Waana jajabinin iyadoo waxna way jajabaan laakiin inteeda badan iyadoo sideeda u nool ah maxay aheedo ku cuni karnaa inay wax qabsan noo noqoto. Marka wax yar aan sugaynaa hadda wax kale biyo kale kuma darin wax kale waa aragtiin hadda iyadii dhacaan iska dhashay digirta iyo koostada waa ogtiin dhacaanay dhalee maahan oo iyada waa kaasaa ugu dambeyntii hadda waa noo soo dhamaatay masha Allah. Waa aragtiin maraqeen lagama sheekeyn karo. Waxaan ku darsanaynaa hadda barbarooni iyo basal yar aan soo jarjaray. Carfis yar lee ka rabna wax kale ma u baahna. Marka walaalaha qaaliga waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi waxaan insha Allah aad iyo aad ugu heli doontiin soo brogeeya uga faa'iiday walaalahaaga kala. Saxaabay baa aragtiin ugu dambeyntii maraqeen waa inoo diyaar insha Allah. Waxaan wax yar kor kaga daaday kabsar caleen aan si yar u soo jaray. Marka waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi waxaan maraqan laga sheekeyn karin waayo waxa aragtida ku cuni kartaa masha Allah. Aan canjeeradaas aan rabaa maanta inaan ku cuno canjeeradaas aan u soo diyaarsaday. Marka insha Allah fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe inoo saar saamarada nala socotid. Sidoo kale walaalaha u sii share garay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.